السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا ولاalaha أحبابتا ku xiran barnaamijkeena Saacid Talk soo dhawaada waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Dabcan dhamaantiina waxa laga yaabaa mar nolosheena kamid ama haddaba waan soo martay cilada ku saabsan shaqo la'aanta ama duruufaha shaqo la'aanta ee dalka ka jirta. qof walba cid walba naga mid ah saameyn ay ku yeelatay. Marka ma u baahna sharaxaad badan iyo tafaasiil dheeri. qof walba ciladaas uu ka dhergsan yahay waxa sababay iyo noocay tahay iyo tijaabadeeda qof walba soo maray. Maanta waxaan jeclahay in la wadaago 9 talaabo ama 9 talo muhiim ah ee nagu caawinaysa ama caawinaad noo noqonaysa saan u helno ama u raadino shaqo. midda koowaad waxaan ogaanaynaa dadka arrimaha shaqada ka sheekeeyo sheekooyinkooda la maqlo meelaha lagu shaaho asxaabta markay sheekeysanayaan sidoo kale social media meel walbo wax lagu qoro ama xog lagu wadaago dadka badana waxa u badan dadka dhibaatooyin kala kulmay shaqaaleysiinta iyo eexashada iyo dhibaatooyinka shaqada ku saabsan ayaa sheekeeyo laakiin dadka shaqooyinka ku guuleystay dadaalada ay bixiyeen talaabooyinka ay qaadeen inta badan dadka lamada wadaagaan taasoo dadku ku badanaysa inay kalsooni darre iyo jawab ka dareemaan qaabka ay shaqada loo raadiyo. marka waxaad ogaataa mar walbo wax walba laga sheekeeyo oo dad ay ku dhaceen qasab inay kugu dhacaan taasna kaama reebayso inaad dadaasho ee shaqo aad raadiso. talada labaad shaqo markaad imtixaan u galaysid ama aad raadinaysid waxaad ogaanaysaa in ay muhiim tahay inaad taqaano informationka xogaha ku saabsan shaqadaas oo ay isugu jiraan waajibaadka la iska rabo nooca shaqada waxa la qabanayo iyo waxyaabaha loo baahan yahay qofkaas inuu shaqadaas qabto iyo mas'uuliyad ka saaran iyo qofka waxa qualifications ama aqooneed looga baahan yahay in aad ogaato waay. saas darteeda waana waxa ugu badan ee imtixaanka hadduu qoraal yahay ama interview yahay ugu keeno qofkana laga weydiiyo. marka haddaad shaqo raadinaysid waa inaad ugu yaraan aad ku tala gashaa inaad xog badan ka haysid waa muhiim. midda saddexaad waxay tahay waa inaad aqoon ilaa meel dhaxaad ah ama fiican u leedahay laba shay ama laba maado kuwaas oo kala ah luqadda Ingiriisiga iyo kombiyuutarka. sababta uu leeyahay waxay tahay hadda shaqooyinka adduunka hadda ugu badan ee ka socda ama ka jira deegaanadeena Soomaalida iyo dunida inteeda badanba waxa shuruud u ah inaad Ingiriiska aad taqaano taasoo ay waajib tahay inaad xirfadeeda leedahay ama aad taqaano. sidoo kale haddii suurtagal tahayna aad ka haysato shahaado imtixaan aad ku soo gashay cadeynaysa inaad ku fiican tahay. sidoo kale kombiyuutarka waajib waaye aad uu muhiim u yahay. waayidii hore shaqooyinka kombiyuutar shardi weyn uma ahayn laakiin marba marka ka dambaysa saameynta iyo baahida tiknoolajiyada loo qabo aad ay u sii badanaysaa. marka qof kombiyuutarka u baahan yahay gaar ahaan wuxuu u baahan yahay marka laga soo tago guud ahaan adeegsiga kombiyuutarka wuxuu u sii baahan yahay inuu yaqaano adeegsiga barnaamijyada ay ka kooban tahay application-ka gaar loo yaqaan office waa inaad ka taqaano inta ugu badan ha ahaado Word ha ahaado Excel Access iyo PowerPoint. waxaan ugu badan aad loo isticmaalo waxa waaye Word-ka PowerPoint-ga iyo Excel-ka. midda afraad waxay tahay shaqadu ayadu kuma raadiso ee waa la raadiyaa taasoo ka dhigan inaad isku hawsho waqti geliso waqtiga qayb muhiim ah ka siiso raadinta iyo inaad baarto shaqooyinka. taasna waxay u baahan tahay xoogaa xirfadaada ee ku saabsan waxbaritaanka inaad si kordhiso ama aad horumariso. tusaale waa dadka waxa ugu badan ee dadku wax ka isticmaalaan waa Google laakiin waxaa jiro meelo badan oo shaqooyinka lagu soo bandhigo sida Facebook oo kale shaqooyin lagu baahiyaa. sidoo kale LinkedIn haddaad account aad leedahay ama haddaadan lahayn samayso LinkedIn kana wuxuu leeyahay inuu fariimaha oo shaqooyinka fursadaha aad buuxiso ee u baahan tahay wuxuu ku suurtagelinaa inaad magacaaga emailkaaga waxyaabo aad geliso kadibna aad ku darto waxyaabaha u baahan tahay shaqooyinka ku fiican tahay xirfadaha aad ku baahiso. kadib laba faa'iido ku qabtaa. horta faa'iido application-ka ama programka wuxuu ku soo dirayaa shaqooyinka adiga aad inaad qaban karto aad sheegatay fursadaheeda ayuu ku bandhigayaa waliba goobaha aad dooratay ee aad jeceshahay inaad ka shaqeyso. labo wuxuu ku suurtagelinayaa dadka daneeyo shaqooyinka xirfadahaas dadka leh ayaa kula soo xiriirayo ama hadduu qof u raadiyo skillkaas qof leh adigana aad ku darsatay skillkaaga ee profile-kaaga LinkedIn-ka dad badan ayaa LinkedIn-kaaga ku soo xirimayo kadib ayagoo raadinayo in qof xirfadaas leh. saas darteed waxaad helaysaa email badan ama fariimo badan sheegayo in
lagu baahan yahay xirfadaadana loo baahan yahay CV-gaagana laga soo helay shaqadaadana loo baahan yahay sidoo kale waxaa jirto website-yada dabcan kala Soomaalida oo wada taqaaniin website-yada badan oo shaqooyinka localka lagu baahiyo ayaa jirto sidoo kale talada shanaad waxay tahay waa inaad ka shaqeysaa barnaamijyada volunteerska ama sida bilaashka loogu shaqeeyo ee lagu kasbado xirfadaha waa inaad ka qayb gashaa sababtoo fursadii waa haysaa waad ka faa'iideysan kartaa haddii aragto barnaamij ama fursad inaad xirfad aad ka faa'iido laakiin volunteer ah aysan lacag lahayn haddaad jaanis u helaysid aad isku dayi kartid waa inaad ka qayb gashaa maadaama fursadii aad hayso sidoo kale barnaamijyada internship-kana mar walba aad heli karto inaad ka faa'iidaa waxyaabaha laga faa'iidana waxaa ka mid ah horta kow marka hore dhibka bini'aadamka ugu badan haysta qabsada waxaa ka mid ah dadka aan shaqada haynin waxaa ku badan fursadda aadka u baaxadda weyn ee qofku uu ku dareemayo caajis iyo niyad-jab ayaad buuxinaysaa labo waxaa kaloo faa'iido ka helaysaa meesha haddaad kasii shaqeyso xirfad ayaad ka kasbanaysaa saddex waxaad ku baranaysaa dad badan iyo xogo badan oo dheeri ah ee ku saabsan fursadaha shaqada iyo meelaha ay ka jiraan ayaad ka faa'iideysaa sidoo kale fursadaha shaqada ee munaasabka ku ah mararka qaar location kale ama meelo kale ay noqon karaan marka mar walba waxa ku xiran fursadaha shaqada aad raadinayso bogoob gooni ah ku xiran u diyaar garow inaad u safarto inaad meelo kale u tagto inaad u tijaabiso deegaano cusub sababtoo ah aqdaarta Ilaahay ayaa hamaareeya ama gacanta ku haayo sidaas darteeda khayrkaaga haddaadan ka helin magaalada aad joogto isku day haddaad aragto fursad magaalo kale ee shaqo kale meel kale ka furan inaad apply gareyso aad raadiso xogteeda daba gasho laga yaabo in fursad lagu siiyo kadibna aad u wareegto laakiin ha ku xirin rabitaankaaga shaqo ama shaqada aad raadinaysid kaliya inaad magaaladaada ama deegaankaaga ka hesho arsaaqada Ilaahay meel walba ayuu ku qaybiyay marka waxa laga yaabaa arsaaqdaada inay meel kale ay ku jirto sidoo kale waxaa jirto shaqooyin badan ee aan la xayeysiinin ayaa jirto goobo shaqo shirkado kambaniyado hay'ado waxaa jirto aan shaqooyin xayeysiinin ee aan baraha bulshada ama website-yada aan soo gelin laakiin laba qaab ay wax u shaqaaleysiiyaan midna waa waxay fursad siiyaan dadka xarumahooda ku xiran calaaqo leeyin ay yaqaanaan sidoo kale labo waxay kaloo ka faa'iideystaan cid walba oo shaqo doon u timaado fursadaha ayadoo jiraan ayaa hadana waxay helayaan qof shaqo doon tusaale xirfadaha ama hababka ugu fiican ee dadka sameeyaan waxa ka mid ah aysan wax dhibna kugu lahayn inaad calaaqo la dhistid kambaniyada iyo shirkadaha iyo hay'adaha waxaan lagu dhisi karaa tusaale haddaad tahay qof iswada dokumentigiisa u daawacan yahay fail ugu jiro shirkadaha tagayo isgadaayo oo marketing iska sameynayo dabcan haddaad 2 meel 3 meel 4 meel aad laga soo cudur daarto qasab waqtiyada ka mid ah meel ayaad fursad ka helaysaa waxaa laga yaabaa inaad fursadii ku soo hagaagto marka mararka qaar mar walba ma aha shaqooyinka online la soo gelinayo ila apply gareynayo la fursad kuma jirto fursado kale ayaa jiro ku sugaya laakiin u baahan inaad talaabo u qaado aad isgado shakhsiyada dadka iska gado oo sheegto waxa taqaano dokumentiyada aad wadato xafiisyada aad soo booqato dabcan wax weyn ee kaaga lumay ma laha because wax laga yaabaa inaad guriga iska fariiso meel meesha fariiso ama waqti iska luminaysid laakiin haddaad dhaqaaq samaysid aad la kulanto dadka shaqaaleysiinaya hay'adaha aad dhahdo aniga aqoontan aan leeyahay waxaan rabaa inaan idin la shaqeeyo haddii boos idin ka banaan yahay ama waxaad dhihi kartaa inaad dokumentigaaga u dhaafto diyaar aan ahay waqti aad rabtiin ii soo baahdo aad dhahdo taasna wax kaaga halaabay ma lahan waana dadaalka shaqada loogu jiro mid ka mid ah dad badan ay ku guuleysteen ayuu ka mid yahay shaqo haddaad raadinaysid ama shaqaale aan aad tahay weligaaga shaqo mishaar ha ugu diidin sababta u leeyahayna waxay tahay haddaad shaqo raadinaysid waa inaad shaqo walbo munaasib ah haddii rabto mishaarka ha yaraado laakiin ay available tahay ayna ka faa'iideysataa ilaa mid kale oo ka fiican aad ka helaysid sababta u leeyahay waxa waaye haddaad shaqadii hesho horta bilow fiican ay ku tahay waa mahmaah waxaa jirto dhahaysa qof meel lagu soo aaminay ayaa meel kale lagu sii aamini karaa taasoo ah in horta marka hore CV-gaaga inaad meel heblay la soo shaqeysay ay ku noqonaysaa shaqo kale marka raadinaysid kow midda labaad sidii shalay aadan shaqo haynin oo dakhli waxba aadan haynin way ka roon tahay midda saddexaad waxaad ka sii kasbanaysaa xirfado asxaab iyo waxyaabo badan midda kalena shaqada adiga aad ku riyoonaysid ee aad mustaqbalka inaad heshid aad rabtid
maalinka ugu horeysa ma helaysid, sanadka ugu horeysa ma helaysid, waxaad helaysaa maalinkay kuu qoran tahay. Inta laga gaarayo waxaa u baahan tahay inaad noloshaada wadid, inaad shaqaysatid, inaad fursadaha ka faa'iidaysatid, inaad dadaal badan bixisid. taasoo qaybna ay ka mid tahay inaad shaqada yar ee aad markaas fursad u haysid inaad buuxiso ama aad ku biirto. Qodobka aan ku soo khatimayaa wuxuu yahay waxyaabaha kale oo muhiimka ah ee wax badan ku tarayo markaad shaqo doon tahay ama fursadaha shaqada aad raadinaysid. waxa waaye kaliya inaadan ku koobnaanin shahaado jaamacad aad haysatid kaliya. waa inaad ka faa'iidaysataa koorsooyinka yaryarka ee online-ka lagu dhigto, kuwaas oo wax badan kuu faa'iideynayo. sababtan waxaa ka helaysaa horta kow, koorsaadkaas hay'adaha ama kambaniyada bixiyo international lacag badan kagama bixayso online-ka lagu dhigtaa. labo, sidoo kale experience cusub ayaad helaysaa ama shaqooyinka. tusaale dadka hadda مثلا dadka jaamacad markay ka soo baxaan waxyaabo badan waxaa jiro jaamacad aysan ku soo dhiganin, laakiin fursadooda shaqadana magaalada ay buuxaan, laakiin adiga aan jaamacad ku soo dhiganin. markaad shahaadooyinkaas haysatid waxay ku caawinaysaa horta guud ahaan qof oo academic oo university soo dhigta ayaa tahay. labo, waxaad haysataa shahaadooyin professional ah ee koorsooyin aad soo dhigatay ee shaqooyinka markaas ugu badan magaalooyinka ka jira ayaadna haysataa, taasoo kuu sii furaysa irbaabo badan oo adiga horey usoo tijaabinin ama shahaadadaada jaamacadeed aysan kuu furin. marka horta shaqada Ilaahay ayaa bixiyo. mar walbo waa inaan aaminaa horta inaan fursadeena ama qadarkeena maalinkiisa u imaanayo ee aanan nii jabin, ee Ilaahay aan tala saarano. sidoo kale dadaal walbo aan u bixin karno inaan xirfadeena horumarino, inaan calaaqado dhisno, inaan fursadaha raadino, aan ka faa'iidaysano, aan ku dadaalno. waxaadna ogaataa si walbo ay xisha ay u jirto, si walbo oo garab iyo dadka isu siiyaan irsaaqdaada qadarkii loogu talagalay ee lagu soo qoray fadhigaaga ay kugu imaanaysaa. kaliya waxay nooga baahan tahay inaan asbaabtii bixino. marka waxaan rajeynaa inta Ilaahay u waafajiyay inaan idin la wadaagay. wixii aan ka tagayna comment-yada ku dara. waxaan idin rajeynayaa khayr iyo kulan dambe oo xiiso leh.